adigoo jooga magaalada berbere ee gobolka saaxil laynka kale ee telefoonka. halo salaamu calaykum. calaykum salaam waraxmatullahi. ha soo dhowow magacaaga halkaad joogtid. magacayga waa xuseen cabdi xasan. haya xaggee joogtaa? degmada dinsoor. soo dhowow degmada dinsoor gobolka bay barnaamijka waa daawanaysay maamul goboleedyada ma la socotaa xaaladahooda? si fiican. haya maxaad odhan lahayd? waxaan oran lahay wariyaasha lehe oo loo diiday inay warbixinadooda gudbiyaan inay khalad weyn ku tahay maamul goboleedyada. waxaan kaloo oran lahay in maamul goboleedyada ay si fiican wax u qabtaan, ay wariyaasha fasaxaan oo hawshooda si fiican si wanaag ay u gutaan. sababtoo wariyaha wuxuu u shaqeeyaa bulshada, wuxuu u shaqeeyaa maamulada oo waxa bulshada ku dhex dhisan inay wax usoo bandhigaan, shacweyne ay tusaan, ay wax u qabtaan. aad iyo aad mahadsanid adigoo jooga dinsoor waa kuu mahad celinaya gobolka. laynka kale ee telefoonka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaam waraxmatullahi wabarakaatu. ha walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid. halo ha walaal telefoonka igala soco. halo walaal soma universal soma walaal. ha universal weeye waxaan ku weydiinayaa madaxweyneyaasha tirada badan ee soomaaliya see u aragta adiga? cagmadhiga soma cagmadhiga. cagmadhiga waaye cagmadhiga waaye madaxweyneyaasha sidaad u aragtaa faraha badan? universal aad baan u saleynayaa cagmadhiga. magaciigu waxaa la yidhahdaa cusmaan cabdinuur axmed xidib baa ku macdheerahay. maamul goboleedyada ku jiraya magaalada kismaayo maamul goboleedka axmedoobe hogaaminayo waxaan u arkaa in ay tahay qalqal siyaasadeed. waa gartay. waxaa weeye ummadda soomaaliyeed maalmo meel bay ku gudbaysay. maanta soomaaliya waxaa weeye wadda baa u aftiintay, waddadii u aftiintay oo dawladnimadeed baa laga soo horjeedaa in qalqal siyaasadii lagu burburiyo 40 sano loo doonayo weye. waa hagaag aad baan kuugu mahad celinaya adoo igala qayb galaya barnaamijka. laynka kale. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. halo halo malawna. ha maalin wanaagsan waa ku salaamaya walaal magacaaga? maxamed axmed xaaji cagmadhige. waa mustafa bashiir xaaji gobdoon oo degan switzerland magaalada zurich. waa ku salaamayaa madaxweyneyaasha faraha badan ee soomaaliya ee adduunka uusan qabin adoo suyuuriq degan see u aragtaa mustaf? waa mahadsantahay maxamed axmed xaaji. waxaan rabaa inaan waxyar ka dhaho arrimahan federaalka iyo nidaamka inoo degsan dastuurkeena kumeel gaarka ah. madaxda maamul goboleedyada waxaan ka dhihi lahay maadaama dawladda soomaaliya in badan doorashada ugu dambeeyada la galay la sameeyey aqal cusub oo aqalka sare la yidhaahdo. aqalka sare xubnaha wakiilada ka ah waxay ka yimaadeen maamul goboleedyada. waxaa loo baahan yahay aqalkaas inay wakiilo ka noqdaan arrimaha maamul goboleedyada u baahan yihiin ama ay ku dhalinayaan dawladda ama dawladda ay ku saacidayaan. taa ayaa meesha ka baxday. marka waxaan ku talinahay madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya maxamed farmaajo inuu iskugu yeero labada aqal si arrimahan looga hadlo xilliga ama waktiga ay ugu habboon tahay sidii wada shaqayn ay ula yeelan lahaayeen maamul goboleedyada dalka soomaaliya. dalka switzerland waxaa ka jira maamul federaal ah, laakiin waxaa wakiilo ka ah dawladda dhexe oo ay matalayaan xildhibaanadii laga soo doortay goboladii federaalka ah iyo xildhibaano wakiilo ka ah gobolada qaarkood. marka waxaa habboon in fikrad cusub lagu soo kordhiyo in aqalka wakiilada lagu daro maamul goboleedyada madaxdooda ama ay ka qayb galaan golaha fulinta ee wasiirada ee shirarka maalin kasta khamiista dhacayo kale maamul goboleedyada ay wakiilo u joogaan ama iyagaba ay joogaan si arrinta ansixinta dawladda ay qayb uga noqdaan si looga maarmo wada shaqayn xumada ka dhacday maamul goboleedyada iyo dawladda ama runta loogu sheegay maamul goboleedyada inay wasiiradooda iyo xildhibaanadooda ay saacidaan. si fiican mustaf ugu dambaystii dadka qurba joogta ee waxbartay ee laga filayo inay dalka soomaaliya wax taraan ama qaarkood ay xilal hayaan waxaa jira dad lagu dhaliilayo inaanay daacad ahayn dalkooda iyo dadkooda kuwaas maxaad odhan lahayd? maxamed axmed xaaji waxaan odhan lahaa dalka soomaaliya 25 sano ugu dambeeyda faa'iidada ugu weyn oo haysto waxay ahayd dadka qurba joogta ama dadka u shaqeeya hay'adaha samafalka ah ayaa sabab u noqday in soomaaliya dhibaatooda ay ku jirtay ay ka saacidaan. iminka waxaa cusub nidaamka cusub ee siyaasadda ayaa dhibaatooyin ka taagan tahay. taana waxaa ugu wacan dastuurka inoo yaallo in dib loo fiiriyo sida loo xushmeeyo waxa soomaalidu ay ku heshiideen. taa ayaa muhiim ah
in xildhibaanada ay dib u eegaan dastuurka iyo wada shaqaynta nidaamka dawliga ah. aad iyo aad mustaf bashiir xaaji gobdoon adigoo jooga waddanka switzerland barnaamijkan ay ka qayb galay aad baan kuugu mahad celinayaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. waalaikum salaam cabdi xaaji. ha soo dhawow magacaaga. magacayga cabdi faarax oo jooga degmada doolow. degmada doolow ayaad joogtaa ma og tahay in madaxweyneyaal badan soomaaliya ay jiraan oo lagu jahawareeray. waa noogaha walaal waa la socdaa waxa caawa iigu keen inaan anoo doolow jooga saacaddan kusoo waco waa barnaamijkaas. waa hagaag sidee looga bixi karaa madaxweyneyaasha faraha badan oo hal madaxweyne loo yeelan karaa oo federaal ah. walaal madaxweyneyaasha faraha badan waa waxa soomaaliya maanta irfaadka inta keenay nin walba oo madaxweyne goboleedu hadda wuxuu sheeganaya inuu asaga madaxweyne yahay gobolada uu joogo ee ku faanayaan ay leeyihiin dawladda wax yar ay ka talisaa ayaga gobolada ay joogaan ba waxay ka taliyaan caasimadaha ay kumeelgaarka ay ku sheegteen caasimadaha ay qorteen xataa ma tegi karaan. waa gartay marka hadda aniga oo gobolka gada joogno oo doolow mandheera noo dhow kenya noo dhow ethiopia noo dhow weligaa maaragtay madaxweynaha cabdi ile ethiopia intuu meel tago oo dhaho aniga go-aankaas baa gaari karaa. aad waa umahadsan tahay waa kuu mahad celinayaa adigoo barnaamijka ay gala qayb galay oo madaxweyneyaasha faraha badan ee soomaaliya u arka inay cilo tahay. laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. magacaaga halkaad joogto walaalo. waa cabdullaahi macalin xasan waxaan joogaa holland netherland. cabdullaahi sidee u aragtaa jahawareerka madaxweyneyaasha faraha badan ee soomaaliya arrintaa ma la socotaa. arrintaas aad baan ula socdaa cagma dhige waana ka xumahay waxa ka dhacayo waddankeeni waana i xanuunjinaysaa madaxweyne axmed maamulka jubbaland waan u xilhaynay laakiin wax meesha ka soo baxay waa wax aanan ku faraxsanayn. waa hagaag mid baan qabaase aniga waxaan dusha ka saaraa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka farmaajo sababta oo ah wuxuu galay aamusnaan dheer ayuu galay markii uu xilka qabtay wax badan uu warramay hadalka yaree maa la yidhi ma aqaan aamusnaan dheer uu galay bahasha inta ay wax ka qabasho laheyd inta qaliidka waa ognahay waqtiga laakiin hadda bishii february iyo bishaan markaa fiirisid waa dhowr bilood ma badna hawshiisuna way socotaa laakiin waxaan kaa rabaa adiga adoo iisoo koobaya madaxweyneyaasha faraha badan sidee looga bixi karaa. waa ka xumahay madaxweyneyaashan oo waa meesha ay u socoto lama garan karo in qof walba oo inta meel ooto uu yidhaahdo bandarkan anaa madaxweyne ka ah waa wax oo horta aan wanaagsanayn laakiin waxaan rabaa aniga marka baasha inta ay qoyaneed in la qabto oo madaxweynaha farmaajo uu la shira xataa golaha sare. aadaa umahadsantaa waa kuu mahad celinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ha walaal telefoonka igala soco t v-ga gaabi magacaaga iyo halkaad joogtid. hallow magacayga magaalada boosaaso. ha magaalada boosaaso sideed u aragtaa barnaamijka ma daawanaysay. barnaamijka waan daawanaya madaxweyneyaasha badan waxaan u arkaa madaxweyneyaal badan oo qalad ah. aad iyo aad telefoonka igala soco walaal. marka waxaan odhan lahaa cagmadhigta madaxweyneyaasha badan hal la bedelo oo hala khadka marka shacbiyada kacdo shacab baa loo baahan yahay. aad iyo aad aadaa umahadsantaa waa kuu mahad celinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. calaykum salam waraxmatullah cagmadhigo waan ku salaamaya. mid lamidaan kuusoo gudbinayaa waxaan ku weydiin lahaa soomaaliya mucaaradnimadeedu waxay u xuub siibatay ma iyo wa oo ah marka aanan xil hayn mucaarad markaan xil helana wadani arrintaas see u aragtaa. waxaan u arkaa wax khaldan baan u arkayaa. haye cagmadhige waxaan filayaa imika dee toos malahay maqli maysid. toos waay toos telefoonka igala soco waa toose. waa hagaag codkaaga cod kalaad la hadlaysaa. anyway gadaal baad ka arki doontaa soco. ha waa hagaag cagmadhige waxaan ka xumahay marka hore anoo ra'yiga dhiibanaya warsamo aniga la idhaa london baan joogaa. in madaxweyneyaasha faraha badan inay khalad tahay waanu arkayaa. adduunweynahana waxaas wax ka jira maaha.
madaxweynaha soomaaliya waa farmaajo keliya weeyaan nimanka faraha badan ee kismaayo ku shiray way khaldan yihiin dalku hal madaxweyne uu leeyahay waa qodob sax wey qodobka labaad waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed uma baahna burbur kale 30 sano ku dhowdahay baaba iyo burbur ku jirtay rajihii keliya maanta soomaaliya haystay wuxuu ahaa in maamulka farmaajo la iska rabtaago oo dawlad cusub oo qiimo leh ay dhisanto adduunkana caalamkeena iyo sharafteena soo noqoto waxyaalahan ka dhacaya kismaayo axmed madow anagu rajo weyn baanu ka qabnay isagaa abaabula shirkan isagaa isugu yeeday nimankan magaranaysaay sheeganaya madaxweyneyaasha ee madaxweynaha sharciga ah ee ummadu dooratay kasoo horjeeda waxqabadkiisa wadaniyiin maahan odhan karaa anigu ra'yigay anigoo nin weynaa waxa weeyaan in dawladda soomaaliya ee joogta ee sharcigii ay nimankaa tallaabo ka qaado nimankaa waxa weeyaan in sharciga la marsiiyo oo axmed madoobe oo kolley sharaftii hadda ay ka dhacday in isugu yeedhan maahayn xeef oo dadkiisu riday inuu ka taageeraya iyagoo la baxay kuwa kalena qadaabashada imaaraadka ay tegayaan ay ku qadaabanayaan ee ay caddeeyeen xeefid waan qadaabanayna ceeb bay ku tahay ummadda soomaaliyeed aad iyo aad waan ku salaamaya warsame adigoo jooga magaalada London weli waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga Universal Studio London si toosa iyo weliba Facebook oo live ah laynka telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحاج walaal adigoo hal daqiiqo ku soo koobaya sidaad u aragtaa madaxweynayaasha faraha badan ee Soomaaliya qarqiyay waxaan u arkaaniyo horta Soomaalidu waxay tiraahdaa dhariga farabad waa fud xaraaraya haye waxa Soomaaliya ay la degi laadahana waa waxaan tirada badan la adduunka hal madaxweyne waa la garta laakiin san madaxweyne tiradii ay ka bateen waxna tiri maayaan qofna u danaymayaan maxaan ku sheegay tooda maahana tu kalena maba fiirinayaan marka kuwan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda ilaahay kuwan ka qabto sax weeye sababtoo tiisa daryeela tu kala ku daraa yiri meelaha ay madaxda ay ka sheeganayaan anigu madax ma buu arkaba sababtoo waa hogaamiye kooxeedyadii oo magacyo kale loo yeela ma fahant aad iyo aad marka nimankaanaytood horumarna ma rabaan wanaagna ma rabaan ummadana hore uma wadaan ma fahant aad iyo aad marka niyahow kuwan ilaahaygii annagana samaystay oon adoomadiisu nahay inaan barinoon ilaahay kuwan inuu naga hor qabto maahane dalna uma danaynayaan dadna uma danaynayaan fikirkaagu wuxuu yahay in wadanku yeesho hal madaxweyne oo ah ninka markaa haya jagada madaxweynaha federaalka ee Soomaaliya haddaan islaamnahay horta ulul amr waa loo baahan yahay hal qof oo madaxweyne sida caadiga ah oo la yaqaano dadku ummaddu ay wada taqaanana waxa waaye hal madaxweyne aad u mahadsan tahay waa ku mahad celinaya laynka kale ee telefoonka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها ولا مقعاga ii sheeg halka joogtid magacayga waa Mukhtaar Warsame oo jooga Holland Mukhtaar adoo hal daqiiqo ku soo koobaya fikirkaaga madaxweynayaasha faraha badan ee Soomaaliya ka waran saad u aragtaa walaal waxaan u arkaa madaxweynayaasha horta madaxweyne maamul goboleed ma jireen waxaan u arkaa aniga inay yihiin cadow goboleedyo haye midda kale waxaan leeyahay madaxda dawladda in ay xil issaaraan ay awood yeeshaan oo ay yacni noqdaan dad adag hoggaan adag ayaa dalka ka samata bixi karo dhibka aan ku jirno oo Soomaalidu ay ku jirto marka walaal taana waxaan farayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo hoggaanka dalka waxaan farayaa inay gacan bira dalka ku qabtaan ee cadow goboleedyada iyo wixii lamida inay naga xureeyaan si fiican marka dadweynahana waxaan farayaa shacabka inayna ugu yeerin maamul goboleed ee ay ugu yeeraan cadow goboleedyo soo baxay wahagaag aad baad u mahadsan tahay Mukhtaar adigoo jooga wadanka Holland daawadayaal waxaa inoo soo socda qayb gobolka Bay oo ah qaybta iminka aan soo gudbinayo Muxudiin Xusni oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ahna wariyaha Universal ee gobolka Bay waxa uu kamid yahay dadka la yiri aad bay u fududahay in leedin xiraadaha war dirtaan isaga oo Baydhabo jooga waa kan waad mahadsantahay cagta xaaji shalay waxaa jiray generaalka booliiska koonfur galbeed u sareeya Mahad Cabdiraxmaan Aadan mar uu hadlay arrimaha nabadgelyada iyo dadka dawladda mucaaradaya koonfur galbeed mar uu ka hadlayay
waxaa hadalkiisa ku jirtay oo soo hadal qaaday oo digniin uu u jeediyey bahda wararka faafisa ee magaalada Baydhabo iyo warbaahinada gudaha localka ku yaala ee Baydhabo generaalku waxa uu sheegay in aan loo dul qaadan doonin oo xabsi la dhigi doono oo cidna looga heebeysan doonin cidii wariye ah oo wax liddi ku ah dawladda ama siyaasiyiinta dawladda mucaaradaya wax ka duuba oo soo daaya warkaas marka bahda wariyaasha magaalada Baydhabo ku dhaqan runtii walwal xoog leh ayuu ku abuuray waa hadal aad loo la yaabay iyadoo wariyaasha magaalada Baydhabo badanaaba ay ka shaqeynayeen horumarka deegaankan waxay ka qayb qaateen abaarihii koonfur galbeed muddadii ay jirteen horumarkan yar ay ku tallaabsatay qayb bay ka ahaayeen bahda warfaafinta marka hadalkan generaalka uu jeediyey waxa uu wariyaasha runtii maanta sababay in hadalhayn badan ay iska dhex abuuraan ay ka dhashaan in wax badan la iska weydiiyo marka sanadan 2017 lagu jiro iyo hadalkan ka soo yeeray generaalka booliska koonfur galbeed u sareeya runtii waa mid aad u kala duwan sababtoo heerka hadda la joogo warbaahintu qayb bay ka qaateen meelo badan bay maxaa la yiraahdaa horumarka koonfur galbeed ka tabiyeen marka waa wax caqabad iyo dhibaato kale ku sii abuuraya iyo caburin iyo cagajugleen ay noqonayso in la yiraahdo qof mas'uul hayo oo generaal ah in sida u hanjabo oo uu yiraahdo saxaafadii waa la xirayaa haddii ay samayso wax koonfur galbeed aysan raali ka ahayn ama cid dawladda ahayn aysan waraysato marka arintaasna maanta waxaa jirtay wariyaasha qaarkii ee magaalada Baydhabo in generaalka naftirkiisa ay la kulmeen oo ay weydiiyeen sababta sida uu sheegay marka wuxuu yiri in wax cad ay tahay in deegaankan dhibaato in laga abuuro aysan ogolaan doonin waxa kale loo ballamay wariyaashu in bari kulanka uu sii socdo oo generaalka uu si hoose u sii galo waxa ku qasbay iyo waxa keenay in wariyaal uu loo handado waqtigan sanadan lagu jiro 2017 galmudug oo kale way dhacday iyadana waa la socotay marka aad baad u maasan tahay kulankaas barita iyo wixii ka soo baxana وهاجاج أدبو ما تيجي محدين حسني بيدبو داود يالولي يونيفرسال تي في استوديوها لندن توس يوليبا لايف فيسبوكا لينك التليفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو السلام عليكم. عليكم السلام سودا ولا المقع عيالك جوكتيد؟ نوحن شوغا لندن. مقع عجنا؟ رجا. الرجا برنامج كذا داونيسي لبا حرف أيا ماشي أتكاركتان فيليا ما يوا سوماها. ها حكي كوضا لا يوا. وحلا جوضا معارض يو ودني. أدوغو رجع تاي رجع انت لاق بعد قبتا أدوغو رجع في عم بقى أو دنعية دنع كستوى إيه تلمان بالقار دتك وبندق دتك كل هنا يكون وحويا فضلالك وحقات وفي عوي هيه دتك مقرنيا فضلالك أدونك نبه هذا قاته هرمرك لو قارا فضلالك هيه أصلا مركو هذا يقولي فضلالك والنعم هاي دولدي محمد سياد برو dadkii iska jeclaysteen dawladda dhexe ma jirto dawladda federaalka adduunka ugu fiican wadanka America adduunka waxa la waa federaalka ugu weyn haysta wada aragtay laakiin rajo Mareykanka federaalkiisa isteediyada waa governors waa gudoomiyaal waaye annagana Soomaaliya madaxweynayaal badan baa jira rajo miyaanay kula ahayn hal madaxweyne oo madaxweynaha dalka ah inta kale hogaamiye guud maamulo guud horjooga guud arinta maxaa diiday rajo waxa weeyaan anigu aad baan taageersanahay madaxweynenimada Puntland way ku qorantay dastuurkeeda inaysan weligeed ka tanaazuleen anigu waxaan ka soo jeedaa Puntland London baan deganahay madaxweynaha dawladda Puntland Professor Abdiwali Maxamed Ali Gaas wasii maalintii live u sheegay nabada Puntland ka tanaasushay madaxweynihii hore Dr. Cabdimaan Faroolana wuu sheegay madaxweynenimada dadka mashaakil bay haystaan madaxweynenimada problem ma hadii prime minister bay qaaday rajo Soomaaliya hal president ayaa jira oo ah madaxweynaha federaalka ninkuu doona ha noqdo laakiin jagadaas madaxweynaha dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya laakiin maamul goboleedyadu waa governors waa maamulayaal arinta adigu hadii uu baarlamaanka Soomaaliya sharci ka soo saaray wali ma diidanta adigu rajo kana ku qoran Puntland never ina Puntland bedesho wagaag adigu waxaad si gaar ah isha ugu haysaa dastuurka Puntland kuma diidani laakiin hadii federaalka baarlamaanka uu go'aan gaaro adigu wali rajadaadu ma Puntland ba yes anigu madaxweynenimada ku raacsanahay madaxweynenimada there's no problem waxa weeye inta Scotland halka dhameeyo in yar ii dulqaado Scotland waxay leedahay first minister
waa prime minister waay aad baa umahadsantaha rajo adiga oo jooga london waa kuu mahad celinaya laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halow laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku soo dhaweynaya magacaaga iyo halkaad joogtid walaal xaawucuud baa la yidhaahdaa sacuudi carabiya ayaan ka soo hadlayaa xaawucuuday sideed u aragtaa madaxweynayaasha faraha badan ee lagu jahawareeray ee soomaaliya sacuudiga ka waran waxaan rabaa inaad ii gudbisid cabdi xaaji isagii baa kula hadlaya telefoonka igala soco telefoonka igala soco codka gadaal baad ka maqli doontaa telefoonka igala soco haye sideed u aragtaa madaxweynayaasha faraha badan ee soomaaliya walaal madaxweynayaasha aad baan uga soo horjeedaa annaga waxa weeye muxuu ahayto labada wiil oo ilaahay noo keenay oo muxuu ahayto dhaqdhaqaaqa iyo wanaagga samaynahaya oo sharafta leh iyagii oo aan laga muxuu ahayta waxa qaadan labada wiil magacyadooda ma noo sheegi kartaa ha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre haye anigu marka iyagii oo aan la tashan intay ordaan had anigu runtii bisraaxa cabdi muxuu ahayto madoobe waxaan ku araqiinay calashaan muxuu ahayto sharaf haddii uu maaragtay sharaftii uu ku marti qaaday ay tahay wanaag in waad khaldan tihiin kuwa kale ku yidhahdo maamul goboleedyadii kale uu ku yidhaahdana hadeed waa wax wanaagsan haddii ay kasoo horjeedaanna runtii aad baan uga xumahay iyagii oo aanu sugaynay maanta dawladda kale oo bererif noo tiri inay intay qaataan maaragtay ay muxuu ahayto kala orod iyo hadba sidii naaga la isla qabo muxuu ahayto kala dhuumaalayshi aad baan uga xumahay aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya adigoo hinaasay oo la isla qaba camal oo kale aad iyo aad adoo sacuudiga jooga waa kuu mahad celinaya inaad barnaamijka kala qayb gashay laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa maxaa tvga lafka ninka cagma dhige ha isagii baa kula hadlaya magacaaga iyo halkaad joogto walaalo telefoonka igala soco tvga iska daa telefoonka walaal waa hagaag tvga iyo telefoonka ku kala wareeray laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ها مقعد يالك جوجت ولا لا؟ مقعد حيلة وجوي سويدن حيلة محمد. حيلة سيد وارقتا مدحوينياشا فراha badan ee Soomaaliya adigu ma ku raacsantaa arintaas? kuma raacsani markaan ka hadlo arintaas maamulayaasha waxaan qabaa inay madaxweynaha wadanka wuxuu leeyahay hal madaxweyne. waa gartay. madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa gartay. marka nimankaas aniga waxaan u arkaa inay yihiin niman gobolnatoriyaal ah oo boos ay lahayn ay sheeganayaan oo dalkana qasbi dhibaato u horseedaya. sidee looga dhex dhalin karaa wanaag iyo magacaasee loo ogoleysiin karaa waqti dheer may qaadanaya kula tahay ma qaadanayso dowladda federaalka laga rabaa in loo sheego shacabkaan rabaa in loo sheego wadan 10 madaxweyne ma yeelan karo baabuurna ma wadi karaan 5 nin ama 10 nin hal gaari ma isla wadi karaan markii la dhaho federaal waa jira waan qaadan karnaa dhib baan aan qaadano laakiin federaalku waa inay ahaadaan gobernatore hadda for example wadankan yar oo la dhahay wadankan la Mareykanka gobolo badan oo waxaa jira oo federaal ah asagana waa federaal gobolkan la California heshiis ama maxaa la kontrakta caalami ee Canada ama Mexico ama Argentina ama Brazil lama geli karo aad iyo aad u mahadsan tahay xayle aad u mahadsan tahay tusaale fiican aad keentay laynka kale ee telefoonka iyadoo barnaamijku gabagabaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عقتا حاجي وأد بان كو سلامية horta marka kuwaad ma garatay aad baan ku salaamaya adigana magacaaga walaal iyo halka joogtid sida wadanimada aad u shaqeynaysan Universal TV waxaan leeyahay meesha ka sii wada anigu waxaan leeyahay barnaamijka M iyo W aan ka hadlayaa dadka maada iyo wa'da miya ha maada iyo wa'da haya balka hadal maada iyo wa'dan aad loo isticmaalo maalmihii ugu dambeeyay ha dadka maada iyo wa'da waxa keenaya waxa weey horta waxa wadanimada ayaa Soomaaliya ka tagtay waa gartay dadweynaha sana Soomaaliya waxay ku abuurtay burbur waxa keentay qof walba inuu calooshiisa iyo reerkiisa u shaqeeyo waa gartay marka kuwa uu ka soo bilaabo inuu yiraahdo reerkan wuxuu qabanayaa laga soo sharaxo markii reerkii ay soo sharaxaanna inuu reerku wax uu qabanba jeebkiisa iyo dadkiisa uu ka taliyo marka anigu waxaan qabaa horta ma ada dadka ku imaanaya xildhibaanada ku imaanaya marka kuwaas reerka wax uu qabanaya leeyihiin marka labaadna waxay leeyihiin waxa weeye reerka wax uu qaban maayaan maalintii odagii soo doorta maalintii baa ugu dambeysay hadda markuu meesha tagana wuxuu baranayaa wuxuu ku yimi walba xaqdarro ayay ahayd xaqdarradii ayaa weynaanaysa marka
marka xaqdarrada markay weynaatana wuxuu usii shaqeynayaa dadka deriska Ethiopia iyo adduunyada leeyahay Imaaraadka iyo Maarey marka aniga waxaan qabaa maantii waxaa kusoo biiray dhalinyaro aad iyo aad u fiican oo wadaniyiin ah oo xildhibaan ah marka dadkaas ayaa dastuurka ku noqdaan 54 ayay jabiyeen dhinaca algaas iyo nimanka dawladda ee maaragtay madaxweynayaasha nimankan in la xisaabtamo maxkamad la soo saaro dastuurka loo noqdo dastuurka wuxuu ka qabana maaragtay dadku ay qaadaan aada u maadsantahay meel walba aad joogtiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobol walba aad joogtaaniin ka mudaharaada kuna kaca dadka maaragtay afarta madaxweyne ah aada u maadsantahay adigoo igala qayb galay barnaamijka daawadayaal barnaamijkeenu waa gabagabo laynka telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل دقيقة أديكو كسو كوبيا جهوريرك مدحوينياشا الصومالية كورن والله أرنتاس وأرن أد أنا وحنهاي معنا ودنكي أسلين هدو توسروا معنا مفاهمينو مركا وحان أركا إعاقد أو دولة أو كتمد إني تهي مركا هذا أو حنهاي مركا وحان رجينا إنا حتى على الأقل ودخا قلمدك دخا جبلان دخا oo koonfur galbeed in oo la dhaho intaas haboon madaxweyne wadan hal oo madaxweyne ka badan inuu yeesto waa khas oo khalad oo aad u xun waay aada u mahadsantahay waa kuu mahad celinaya laynka ugu dambeeya ee barnaamijkeena arrimaha Soomaaliya iyo nasiibka ma qof dumaraha mase waa rag waa kuma salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ha waa kusoo dhaweynaya magacaaga halkaad joogtid waxaan magacayga waxaa la yidhahdaa gurmad qaran yah gurmad qaran gurmad qaran xaggeed joogtaa gurmad qaran muqdisho waa hagaag markaan jagahayana waddani baan ahay markaanan jagahayn mucaarad baan ahay arrintaa ka warran hadee marna inaa idhaahdo gabar baan ahay marna inaa idhaahdo wiil baan ahay aad bay ukarto waa gartay fikirkaaga ugu dambeeya madaxweynayaasha tirada badan wallahi waa arrin aad u khaldan oo masiibo ah weye waa ka xunnahay markii hore wanaaga ilaahay idin garansiiyey ayaa sii hambalyanaya ninka ku dhiyey waa gartay arrintaas waxay noqonaysaa wax la yaab la weeye waa hagaag wax la yaab la weeye halkaas ayaan ku joojinaynaa waktiga awgii aad baan kuugu mahad celinayaa waxaan guud ahaanba u mahad celinayaa inta barnaamijka ka qayb qaadatay waxaan u mahad celinayaa xildhibaan cabdullaahi goodax barre iyo siyaasi weliba diblomaasi maxamed axmed caalin oo muqdisho joogay xafiiska magaalada muqdisho aad baan ugu mahad celinayaa wariyaasha cadaado iyo weliba baydhabo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloo si gaara ugu mahad celinayaa barnaamijka inta igala qayb qaadatay saaxiibkeen farshaxaniistaheena weyn amiin camir oo jooga edmonton alberta canada oo isaguna barnaamijka kaalin fiican ka qaatay aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kaloon u mahad celinayaa soo saaraha barnaamijka cabdalla cumar muniir iyo weliba axmed daahir waa afaro oo isaguna social mediaha amaba barteena facebooka live ka dhiga iyo guud ahaanba farsamada joogista uu jooga stuudiyaha waxaan kaloo si gaara ugu mahad celinaya cabdixakiim alfaqi dadaalka uu sameeyey iyo weliba lii xaaji oo isaguna kaalin fiican ka qaatay iyo weliba maxamed siciid asxaaf daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii arrimaha Soomaaliya iyo sidaad uga qayb qaadataneed ee qumaneed dabcan barnaamijkani kii u dambeeyay ma noqonayo barnaamijyo kale ayaa jiri doona biidnillaahi kariim iyo universal TV intaan u yarahay intaan u weynahay iyo inta jinka iyo daawadayaal waa meel kasta oo aad joogtaan waa dhammaantiine waa cagta xaaji oo idinla ismaynaan dhaafine wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu